shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya maanta oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa looga hadlay dhowr ajandood ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay wasiirada amniga gaashaandhigga iyo caafimaadka waxaa ugu horeeyay oo hadalka bilaabay wasiirka amniga oo ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale horumarada laga sameeyay dhinaca maaragtay amniga waxaa ku xigay oo isna arrimaha gaashaandhigga isa ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Xasan Xaaji wasiirku waxa uu sheegay howlgalladii u dambeeyay cadawga lagu beegsanayay iyo ciidamada amniga horumarka ay ka sameeyeen howlihii ay ama howlgalladii ay maalmihii u dambeeyay qabanayeen oo uu sheegay in guulo laga gaaray oo ciidamada amnigu ay horumar ku tallaabsadeen waxaa sidoo kale isna maaragtay halkaasi uu ka sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la sii wado howlgallada ciidamadu ay ku baacsanayaan cadawga waxaa kaloo iyana halkaasi warbixin lagaga dhageystay wasiiradda caafimaadka oo runtii si faahfaahsan uga hadashay caabuqa coronavirus waxa ay sheegtay in laga cabsi qabo in hirar labaad ay dunida ka dilaacaan oo haddaba meelo badan adduunka ah cudurkii aad u soo noqday dhimasho badanna ay jirto sidaa darteed waxa ay sheegtay inay laga maarmaan u tahay in lagu baraarujiyo shacabka Soomaaliyeed in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah in dadku ay ka taxadiraan in ay dhici karaan oo waliba la fiiriyo sida ay howluhu iyo dadka cudurka qaba inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay inay u feejigan yihiin oo howlo badan hadda ay ka wadaan dabagalna ay ku sameynayaan sidii xawliga uu ku iman karo cudurkaasi oo ay sheegtay laakiin alxamdulillah inuu wali uu Soomaaliya marka la fiiriyo uu yasiran yahay sidoo kale ugu dambeyntii waxaa golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ansixiyeen laba hindis sharciyeedka koowaad waxa uu ahaa hindis sharciyeedka xajka oo la isku raacay oo si aqlabiyadan ay u ansixiyeen golaha wasiirada sidoo kale waxaa isna la ansixiyay hindis sharciyeedka wax ka bedelka sharciga habka maktabadaha taasoo isna cod loo qaaday marka guud ahaan arrimahaas ayuu ku saabsanaa shirkii golaha wasiirada